barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa mar labaad Cabdilaahi Xuseen Xirsi oo nagu soo booqday maanta Soomaali Radio. Cabdilaahi kusoo dhawow Soomaali Radio. waxaan maanta ka wareysanaynaa 100 sano guuradii ka soo wareegtay markii dalkani kacdoonka uu sameeyay ee xorriyadooda ay dib u qaateen ama ay ka xoroobeen dowladda Ingiriiska. Cabdilaahi waxaan maanta ku weydiin doonaa doorka ay Soomaalidu ay ku lahayd halgamada kala duwan iyo sida ay macnaheedu markii wadanka yimaadeen sida u taageereen barnaamijyada wadanka xorriyadeeda. Cabdilaahi waxaan ka weydiin lahaa adigu waxa tahay ninkii ugu horeeyay Soomaaliya dalkan yimaada dalka magangeliya siyaasadeed weydiista. marka adiga ogaanshaha maalintan oo kale dadka Soomaalida ah ee halkan degan qiime inta leeg ay ku leedahay ay kula tahay oo ama ka qayb qaataan ay u sheedaan muxuu ahaa dabaaldegooga ma weyneeyaan sababta Irishka maadaama ay la soo wadanka Irishka ay heleen oo ay dad wadankan soo dhaweeyay oo tabac badan galiyay bal adigu faahfaahin naga sii su'aal wanaagsan intaan ka xasuusnahay baa dee inay Soomaalidu meesha joogtaa marba way soo kordhayeen marka ka dambayso hase haatee dhinacaas inay shucuur ahaan kala qayb galaan inay maaragtay dareen ahaan kala qayb galaan laakiin waxaan filayaa kolley waa jiraan dee shakhsiyaad baa laga yaabaa in oo ka mid ah ururka Soomaaliyeed ee halka jooga inay ka qayb qaataan. anigu masalan waxaan mar ka qayb qaatay meesha halkaas geesiyada mar aan waxaan filayaa waqti hore 95 ma xasuusto. inta kale waxaan kaloo ka qayb qaatay xusaska kale masalan markay xusaan umuuro kale oo ka mid ah masalan abaartii ku dhacday oo kale taas ayaan ururkaga oo igu qoran oo aan ku jiray oo meel aqoon inta joogtay muddadii xagga siyaasadda maya inta joogtay muddadii dheeray ma jiraan isku soo bax iyo meesha amad xus noocan oo aad kaga sheekayseen taariikhda wadanka Ireland uu leeyahay dadka Soomaalida inay ogaadaan haddii aad sameyseenna maxay dadku inta badan xogaal ma yihiin ma filayo inaan isugu soo baxnay taas ku tala jirtaan waxaasay weeye waanu isnidaameyna haddaan ku tala jirnaa oo dareenkaas waan dareensanahay taas ما يوحنا كرابة يمكن بلو بايدين يمكن بلو نوتهاي أو ده في صوبتين yes هذا ما يستاهل كرا أو واحد سكوبيرين كرا أو هذا اللي يسويني صح مركي هورا ده مجتمع أساسي متشوقين تذكي سوق أنا وحوجا ما كيشوغا منهم بحي سلمان اللي حدود دائما كيشوكته بس كحدا دائما كيشوكته سلمان اللي marka xafidaya hadda si fiican u soo joogay maanta adigu rajaamaad tahay dadkii ugu mas'uuliyiinta waaweynada Soomaalida iyo Somaliland baa halkan degan message-ka muxuu yahay maalintan oo kale aad u diraysaa bulshada Soomaalida ah maalintan oo kale xusuuskeeda iyo inay dadka la qaybsadaan Irishka ah dabaaldegan waa maalin weyn waa sida waxa weeye dee xusuus waxay nooga dhigantahay dalkii xornimadiisa ayay nooga dhigantahay waa maalin weyn waa qolo walba way ku weyntahay qolo cidii la soo gumaystaba maalintan oo kale way ku weyntahay marka waxaan mujtamaceena ku dooranayaa in aan maaragtay ka qayb qaadano dareenka la qaadano oo la kala qayb galo oo xornimada ay magaranaysa u dabaaldegayaan aynu dhex galno oo la dhadhamino sababtoo ah dee nibo wana soo maaragtay isticmaal bayna haystay waynu garanaynaa markaa waxay tahay يعني شعورته ما كان ذكي شغله يلا تبالدقي لماذا لو تبالدقي يا الله ما أنت أيانته يا يعيد وانا أحسن يا Soomaalidu maxay ka baran karaan taariikhda noocan oo maxay ka baran karaan bay kula tahay waxay ka baran karaan dib gobonimadu waxay tahay madaxbanaanidu waxay tahay dadnimadu waxay tahay sinaantu waxay tahay waxyaabahaas maaragtay يعني إن waxa la yaado xulumada inaad xaq u leedahay laba shahaad inaad xaq u leedahay waa laga xad gudbin ayay markaa waayahay Cabdilaahi aad baad mahadsantahay barnaamijkan mid la leeyahay ku kulmi doono waxaan kaaga tagayaa assalaamu calaykum aad baad mahadsantahay Asiis aad baad mahadsantahay amiin aad baad mahadsantahay